inkastoo aynu ku wada xiriiri karno erayada iyo laxanka codkeena, haddana waxaa jirta luqad kale oo aynu ku wada hadalno, taasina waa luqadda jirka. Luqadda jirka waa adeegsiga habdhaqanka jireed, tibaaxaha iyo habdhaqanada si loo xiriiro hadal la'aan. Haddii aad ka warqabto iyo haddii kale, marka aad la falgalayso dadka kale, waxaad si joogto ah u siinaysaa oo aad samaysaa calaamado aan hadal bas ahayn. Calaamadahan aan hadalka ahayn ayaa ka kooban qayb weyn oo ka mid ah isgaarsiinta si maalinlahan u isticmaalno. Sidaa darteed, halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa 3 qayb muhiim ah oo ku saabsan luqadda jirka. Qaybta koowaad, 10 siyaabood oo ka mid ah luqadda jirka oo kaa caawinayo inaad ku dhisato kalsoonida naftaada, korna ugu qaado qiimaha naftaada. Qaybta labaad, sira ka mid ah luqadda jirka oo kaa caawinayo inaad si fudud ku akhriso dadka, kuna ogaato qofka beenta kuu sheegayo. Qaybta saddexaad, sira ka mid ah luqadda jirka oo kaa caawinayo inaad si fudud ku ogaato qofka raba inuu ku soo jiito balse kaa qariyay ka helitaankiisa. Waxaan ahay Jaabir Cusmaan JB. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan nagu soo biir si aad wax badan noogu faa'iido. Haddii aad ka hesho muuqaalkan, like saar. Huwaal mawduucan wax badan ayaad ka faa'iidi doontaan. Nala sii joog ilaa dhammaadka muuqaalka. Haddana ku soo dhawow muuqaalkeena maanta. Qaybta koowaad, 10 siyaabood oo ka mid ah luqadda jirka oo kaa caawinayso inaad ku dhisato kalsoonida naftaada, korna ugu qaado qiimahaaga. Siyaabaha koowaad, sii dareenkaaga buuxa qofka aad la hadlayso. Waxay ka mid tahay siyaabaha lagu maareeyo kalsoonida. Waa adigoo siinaya qofkaad la hadlayso dareenkaaga buuxa. Qofkaad la hadlayso si buuxda u dhegeyso. Markaad barato, si buuxda u fiirsato. Tixgeli inaad fiiriso meel u dhow indhaha qofka ama sunniyaha ilaad kala qabsato inaad qofka si buuxda u eegi karto. Siyaabaha labaad, garkaaga kor u qaad. Dhulka ma fiirisaa markaad socoto. Madaxaaga had iyo jeer hoos ma u dhacaa markaad hadlayso. Taa beddelkeeda, madaxaaga kor u qaad oo indhahaaga hore ha eegaan. Inaad madaxaaga kor u qaado oo aad u jeedo qofkaad la hadlayso waxa ay kaa dhigtaa qof isku kalsoon, xasilooni ka muuqata. Siyaabaha saddexaad, samee xiriirka indhaha. U muuji kalsooni adigoo ilaalinaya xidhiidhka indhaha ee isdhexgalka bulshada. Xiriirka isha ee wanaagsani waxa uu dadka kala tusayaa in aad xiisaynayso la hadalka dadka, aadna ugu bogayso. Haddii ay eegmadu kugu adag tahay indhaha inaad toos u eegto, ka eeg qofka kale meel u dhow isha sida sujuudda ama sunniyaha. Siyaabaha afaraad, daawo gacmahaaga. Waxaa laga wadaa ka taxadar taabashada wejigaaga ama qoortaada. Labaduba waxay muujiyaan inaad dareento walaac ama cabsi. Guud ahaan, dadka kalsoonida leh uma muuqdaan inay sameeyaan dhaqdhaqaaqyadan. Si kastaba ha ahaatee, gacmahaaga ama sacabadaada inaad dibadda u taagto waxay ku siin kartaa kalsooni. Siyaabaha shanaad, jeebabkaaga iska ilaali. Waxaa lala jeedaa inkastoo ay naqan karto mid damac leh in aad gacmahaaga jeebabkaaga ku rido, gaar ahaan haddii aad ka warwarsan tahay in ay ruxmaan gacmahaaga. Haddii aad sidaas samayso, waxa ay kaa dhigaysaa mid walwal badan iyo kalsooni yaraan ka muuqata. Gacmahaaga ka fogay jeebabkaaga si aad ugu ekaato qof kalsooni badan. Siyaabaha lixaad, si tartiib oo cad u hadal. Dareenka neerfayaasha waxay inta badan keeni kartaa in aan ku degdegno hadalka iyo faalooyinka si aan si dhaqso u dhammayno wada hadalka, laakiin hadalka degdega ah ka dhigi karaa dareenkaaga mid cad. Hoos u dhig hadalkaaga ee u ogolow dhegeystayaashaada inay maqlaan waxaad sheegayso. Tani waa hab lagu kasban karo ixtiraam. Siyaabaha toddobaad, toos u istaag. Hadaalin haddii aad la halgamayso walaac ama kalsooni la'aan. Si aad u gudbiso luqad jireed ee kalsooni leh, toosi dhabarkaaga, garbahaaga toosi oo kala fur gacmahaaga iyo lugahaaga. Qaadashada boos wanaagsan waxay kaa caawinaysaa inaad isu muujiso inaad tahay qof kalsooni badan. Siyaabaha sideedaad, dhaqdhaqaaqaaga gaabi. Dhaqdhaqaaqaaga degdega ah ayaa kaa dhigaya mid walaac badan leh. Wax kasta laga bilaabo dhaqdhaqaaqyada gacanta ilaa socodka. Socodkaaga waxay samayn karaan isbeddel. Socodka hoos u dhig, tartiib u soco oo fiirso sida aad kalsooni badan u dareemayso. Si kastaba ha ahaatee, joogtay calaamadaha aan soo marnay sida eegmada markaad soconayso. Siyaabaha sagaalaad, sii gacmo adag. Gacanqaadka daciifka ah ama jilicsan waa calaamad kalsooni daro. Marka ka shaqeey inaad hubiso inaad bixiso gacanqaad adag. Markaad la kulanto dadka kale, muddada gacanqaadista ama salaamista waxay sidoo kale samayn kartaa sida ay dadka kuu arkaan. Cilmi baaris ayaa lagu ogaaday in dhererka gacanqaadka ama salaanta caadiga ah uu ku dhow yahay 3 ilbiriqsi ama ka yar. Siyaabaha ugu dambeeya, siyaabaha 10aad, qaado tallaabooyin waaweyn. Markaad gaabinayso, isku day inaad tallaabooyin dheer qaado. Markaad socoto, dadka isku kalsoon waxay qaadaan tallaabooyin waaweyn waxayna ku socdaan maamul.
maamul. Haddii aad sidaas samayso waxay kaa dhigi doontaa in warwarka iyo cabsida kaa yaraato. Qaybteena labaad, sira ka mid ah luqadda jirka oo kaa caawinayo inaad si fudud ku akhriso dadka kuna ogaato qofka beenta kuu sheegayo. Sirta koowaad, erayada iyo luqadda jirka qofka oo aan iswaafaqsanayn. Sida caadiga ah madaxa oo kor loo ruxo waxay la micno tahay haa, yacni haa waan sameeyey. Dhinac haddii loo ruxana waxay la micno tahay maya ma aanan samaynin. Balse qofka madaxiisa ruxay su'aasha la weydiiyey maya afka ka dhahay, balse luqadda jirka madaxiisa ee kor u qaada. Luqadda jirka madaxiisa kor u qaaday sida asagoo haa dhahaya, been ayuu sheegayaa qofkaas. Waayo dadka si miyir la'aan ah ayay wax ugu tilmaamaan madaxooda. Sirta labaad, bal eeg heerka biligda indhaha. Haddii qof indhihiisa si degdeg ah u libiqmaan marka uu mowduuc gaar ah ka hadlayo ama ka jawaabayo su'aalaha qaarkood, tani waa calaamad muujinaysa walaaca, taas oo inta badan ku beegan beenta. Sirta saddexaad, gacanta oo afka la saaro. Ogow marka qof afkiisa ku daboola gacantiisa waxay u eg tahay mid dabiici ah, laakiin badanaa waxay muujisaa in waxa xiga uu qofka sheegaya ay yihiin been. Sirta afaraad, calaamadaha indhaha beenta. Waxaa marar badan la sheegaa in indhaha ay yihiin daaqadaha nafta, maadaama ay awood u leeyihiin in ay gudbiyaan xog badan. Sidaa darteed, marka qof hadlayo waxaa wanaagsan in laga eego indhaha. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jiro calaamado badan oo been ah oo laga garan karo qofka indhihiisa si toos haddii aad u eegto. Sirta shanaad, isbeddelka qaababka hadalka waa mid ka mid ah calaamadaha beenaalayaasha. Qofka beenaalaha ah wuxuu kugu maran habaabiyaa qaabka hadalka. Mar codkiisa ayuu ku dibciyaa oo si degan ayuu kula hadlaa, kalsooni ku dheehan. Marna kor ayuu u qaadaa codkiisa si uu ku cabsigeliyo beentiisa si uu xoog kaaga dhaadhiciyo. Sirta lixaad, hadal badan. Cilmibaarayaasha waxay dhahaan in beenaalayaasha isku dayaan inay qariyaan oo qiyaameeyaan runta iyagoo isticmaalaya erayo iyo hadal badan. Beenaalayaasha sidoo kale waxay ku daraan faahfaahin dheeraad ah si ay naftooda ama dadka kale isugu daraan. Waxaa kaloo daraasad la sameeyey muujinaysa in beenaalayaasha ay isticmaalaan aflagaado badan iyo magacyaal qof saddexaad. Tusaale, isaga, iyada, iyaga ayaa waxaa sameeyey si ay ugu fogaadaan gulgulaanshaha qofka koowaad. Sirta toddobaad, erayo aan la hubin. Sirtan waa muhiim. Beenaalayaasha ayaa aad u isticmaalo erayo aan la hubin sida waa laga yaabaa, waan u malaynayaa, ma hubo, ma xasuusto. Waa erayo u badan marmarsiyo cadaynayso qofka beenta uu sheegaya xitaa hadalkiisa aan lagu kalsoonaan karin. Sirta sideedaad, bishimaha oo qalala. Qofka beenaalaha hadalka badan marka ay qalalaan bishimihiisa wuxuu isku dayaa inuu carabkiisa mariyo. Waa qof walwal gudaha ka muuqda. Wuxuu isku dayaa inta uu kula hadlayo inuu biyo badan cabo, siiba marka uu qofka wax u sheegayo uu dareemo in uu rumaysanaynin. Sirta sagaalaad, gacmaha iyo lugaha. Qofka beenaalaha ah jirkiisa wuxuu ku sugan yahay xaalad deganaansho la'aan. Taas waxaa sabab u ah dadaalka iyo isku dayga uu sameynayo inuu isdejiyo si aan looga shakin. Taas waxay cadaynaysaa in uu rabo in uu ka baxsado beentiisa kaa dhaadhiciyo. Wuxuu sameeyaa qofka beenaalaha ah in uu qariyo lugihiisa iyo gacmihiisa. Haddii aad meel kursi ah iyo miis fadhisaan si uu kaaga qariyo cadaadiska jireed uu dareemayo. Sirta ugu dambaysa, sirta tobanaad, taabashada garka iyo qoorta. Qofka beenaalaha ragga ah in badan wuxuu isku mashquuliyaa garkiisa in badan inuu ku mashquulo markaad la hadlayso, halka dumarka ay isku mashquuliyaan dhuunta ama dhegta marka ay been sheegayso. Qaybta ugu dambaysa, sira ka mid ah luqadda jirka oo si fudud aad ku ogaan karto qofka isku dayaya inuu ku soo jiito. Sirta koowaad, milicsiga daa'imka ah ee miisaanka haya. Kani ma ahan ishaada la socoshada keliya, waa ilbiriqsiga kala go'ay oo indhaha kugu qabto qofka, halkaas oo labadiinaba aad ku dareentaan waqtiga. Waxaa laga yaabaa calooshaada inay ku rogrogato ama aad dareento diirimaad. Wuxuu ka baqayaa qofka ku soo eegaya in aad ku qabato isagoo ku soo eegaya. Waa nooc eegmada dhahaysa waan ku soo jiidanayaa balse diyaar uma ihi in aan kor kugu sheegto. Sirta labaad, luqadda jirku waxay ka hadashaa codad. Ficilada inta badan waxay sheegaan mug weyn marka ay timaado soo jiidashada xiriirka indhaha. Xiriirka indhaha waa hab awood leh oo lagu dhiso xiriir qof.
haddii uu rabo qofka in uu ku soo jiito waxaa laga yaabaa inay indhaha kugu hayaan muddo ka badan inta caadiga ah ama si joogto kuu jaleecaan. Inta lagu guda jiro wadahadalka, xiriirka indhaha oo daba dheeraada wuxuu abuuri karaa xiriir isku soo dhawaansho jacayl. Sirta saddexaad, waxay xasuustaan waxyaalo yaryar. Waxay u badan yihiin inay ku dhagaan oo xasuustaan kelmad kasta oo aad tiraahdo. Waxay xasuustaan tafaasiisha yaryar ee ku saabsan noloshaada, waxaad jeceshahay iyo waxaad neceb tahay, iyo sheekooyinka aad u sheegtay toddobaadyo ka hor. Waxay daliil cad u tahay inay si fiican kula dhacsan yihiin oo ay qiimeeyaan waxaad la wadaagto. Sirta afaraad, waxay ku dadaalayaan inay waqti kula qaataan. Qofka raba inuu ku soo jiito inta badan wuxuu ku dadaalaa jirkiisa iyo nadaafadiisa si ay ku soo jiitaan una hubiyaan inaad tahay mudnaanta koowaad ee noloshooda. Mid ka mid ah calaamadaha ugu cadcad ee soo jiidashada heerka ugu sareysa waa marka ay si joogto ah u nadiifiyaan jadwalkooda qofka si uu waqti tayo leh kula qaato. Sirta shanaad, way ku furan yihiin. Qofka raba inuu ku soo jiito wuxuu inta badan u arkaa inuu ku qasban yahay inuu kula wadaago sheekooyin qaas ah noloshiisa. Halkan awoodda badan wuxuu muujinayaa kalsoonida iyo isku soo dhawaanshaha iyo shucuurta idinka dhex abuurmay. Wuxuu kuu arkaa qofka in aad u qalanto in aad ogaato noloshiisa dhabta ah. Sirta lixaad, waxay ku dareensiiyaan mid gaar ah. Marka qof si qoto dheer kuu soo jiito waxay inta badan aad ugu sii gudbi doonaan si ay ku dareensiiyaan in lagu qadariyo, lagu ixtiraamo oo si dhab ah lagu qiimeeyo. Waxay si dhab u eegi doontaa baahiyahaaga, rabitaankaaga iyo hamigaaga, waxayna samayn doontaa dadaal dhab ah si ay kuu taageerto gaaritaanka yoolkaaga iyo riyooyinkaaga. Sirta toddobaad, codka oo isbedelaya. Qofka raba inuu ku soo jiito si uu kuu dareensiiyo inuu ku jecel yahay mararka qaar waxay bedelaan codkooda marka ay ku guda jiraan wada sheekaysiga, taas oo calaamad u ah soo jiidashada. Ragga ayaa laga yaabaa in codkooda qoto dheereeya si ay ugu muuqdaan kuwa awood badan, halka dumarka ay codkooda ka dhigi karaan mid aad u sareeya haddii ay tahay miyir beel ama ulakac. Sirta ugu dambaysa, sirta sideedaad, ku soo dhawaanshaha. Weligaa ma dareentay sida aad rabto inaad ugu soo dhawaato jaceylkaaga? Calaamadda awoodda soo jiidashada waa habka ay u fariistaan ama u istaagaan joogitaankaaga. Tusaale, qofka raba inuu ku soo jiito wuxuu isku dayaa inuu agtaada u soo dhawaado ama u soo jeediyo kursigiisa haddii uu fadhiyo. Waa qof mar walba isha kuugu haya. Ugu dambeyn, haddii aad halkan nala soo gaartay aad ayaad u mahadsan tahay. Haddii aad ka heshay muuqaalka like saar, la wadaag asxaabtaada oo share u dheh. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir YouTube-keena Xigmaso. Intaan muuqaalkan lacinaha ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo horumar.